السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيروا هذا خيارتا ميل كاستودنا ذاك جوكتين وورالكيني محمد علي أحمد muuqaalkani haddii idin soo gaaro waxaan idinka codsanayaa inaad like saartiin si dad fara badan u gaaro. haddii halkan ka cusub tahayna subscribe saaro. waxay noo tahay dhiirigelin. waxaynu rabnaa inaynu gaarno sida ugu dhaqsiyaha badan 2,000 oo subscribe. idinka ayaadna gaarsiin kartiin. maanta waxaan idin wadaa qiso aad ajiib u ah. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidi doontiin. waxaa jiray nin Christian ah oo ku noolaa dalka UK. ninkani wuxuu waqti dheer la noolaa cudur. wuxuuna aaday isbitaaladii ugu caansanaa caalamka. waxaana loo sheegay in cudurkiisu waxba aan laga qaban karin. haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid waa maxay cudurka ninkani ku dhacay. ninkani waxaa ka tagday hurdada habeenkii. habeen iyo maalin ma seexdo. daawooyin fara badan ayuu isticmaalay si hal mar u seexdo, balse ninkani wax hurdo ah way ka imaan waayeen. wuxuu go'aan ku gaaray inuu raadiyo halka noloshiisii. wuxuuna u safaray dalka Qatar. wuxuuna la kulmay dadyow kala duwan oo ku nool waddankaasi. wuxuuna u sheegay dhibaatada uu la nool yahay. waxayna ku yiraahdeen waxaad aadaa isbitaalka. wuxuuna u sheegay isbitaaladii ugu waaweynaa ee dalka UK inuu aaday, wax caafimaad ahna uu ku soo waayay. wuxuuna u sheegay inuusan u baahnayn isbitaal kale inuu ku laabto. dadkii waxay ku dhiirigeliyeen inuu mar kale booqdo isbitaalada ku yaala waddanka Qatar. wuxuuna booqday isbitaal ka mid ah isbitaaladii waddankii. wuxuuna la wadaagay dhakhaatiirtii halkaas ku nooleyd inay xaaladiisa ay tahay xaalad aad u akiran oo uusan seexanaynin habeenkii. waxayna u sheegeen inuu u baahan yahay daawooyin. wuxuuna ku yidhi anigu waxaan soo isticmaalay daawooyin aad u fara badan, wax isbeddel ahna ma aanan ka arkin. dhakhaatiirtii waxay weydiiyeen halkuu ka soo qaatay daawooyinkii. wuxuuna u sheegay inuu isbitaal ku yaalo waddanka UK uu tagay marar fara badan. dhakhaatiirtii waxay ahaayeen dhakhaatiir taqaana isbitaalka ninkan ka hadlay, tayadiisii iyo kaalinta uu kaga jiro dalka UK, maadaama ay ahaayeen dhakhaatiir khubro ah dalka UK intooda badan wax ka soo barteen. waxayna u sheegeen inay rabeen oo keliya inay u qoraan daawooyinkaasi. markaas ayuu ku yidhi anigu waan soo isticmaalay daawooyinkaasi, wax isbeddel ahna waan waayey ee wax kale ma ii haysiin. markaas ayay u sheegeen inaysan u haynin wax daawo ah. maalmaha ka mid ah ninkii oo iska socda suuqa Dooha ayuu wuxuu la kulmay dadyow fara badan oo ka kala yimid dhammaan daafaha caalamka. wuxuuna la wadaagay xaaladiisii. ugu dambeyntii wuxuu arkay nin ahludiin ah, ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa dadka ku baraarujiya. wuxuuna u sheegay dhibka haysto. ninkii wuxuu ku yidhi daawadaada aniga ayaan haaya. ninkii aad ayuu u farxay. wuxuuna ku yidhi haddii aan caafimaado wax kasta oo aad u baahan tahay farta ayaan kaa saaraya. waxaan ahay qof hantiilo ah, ganacsato ah, guryaal fara badan waan leeyahay. waxaan u baahanahay inaan hal mar hurdo helo. ninkii farxaddiisa lama qiyaasi karo. ninkii markaas ayuu ku yidhi anigu waxaan ahay qof muslim ah. waxaan rabaa inaan kugu dhiirigeliyo inaad ku soo biirtid diinteenii. qofka wuxuu ka helayaa nolol degan oo raaxo ah. wuxuuna u soo dariirsaday aayadda qur-aanka kariimka oo odhanaysa alaa bidikrillaahi tadma'inul quluub. wuxuuna u sharaxay macnaha iyo qiimaha ay ku fadhido. sidoo kale wuxuu ku dhiirigeliyey hadduu ku soo biiro diintani islaamka oo si dhab ah ugu soo biiro inuu ku noolaan doono nolol aan aadi ahayn. ninkii wuxuu bilaabay inuu maalmo ka soo fikiro. dhowr maalin kadib dib ayuu ninkii ugu soo laabtay. wuxuuna u sheegay inuu rabo inuu diintani ku biiro. ninkii waa soo dhoweeyey. waxaana loo qabtay tawxiidka. ninkii halkaas ayuu ku soo islaamay. allahu akbar. maalintaas wixii ka dambeeyey waxaa u bilaabatay nolol ka duwan noloshii hore. waxaa lagu dhiirigeliyey inuu iska dhaafo darooqadii uu isticmaali jiray sida khaadka, khamrada, hashiishka, tobaakada. ninkii wuxuu go'aan ku gaaray inuu iska joojiyo. waxaana loo bilaabay barashada qur-aanka kariimka. sidoo kale waxaa la baray salaadaha. ninkii wuxuu galay nolol aan aadi ahayn. habeenkii
hurdo la-aantii iyo dhibaatadii uu ka jiray halkaas way ka baxday. wuxuuna noqday nin noloshiisi aan la qiyaasi karin. ninkii asagoo aad u faraxsan ayuu wuxuu yidhi ariiriga iyo rafaadka aan ku jiray waxay ahayd darooqadii iyo diintaani maalaya aniga ah aan ku jiray. wuxuuna dareemay inay diinta islaamka tahay diin raxmad iyo naxariis ah. ninkii wuxuu ku yidhi waxaan u baahanahay inaan abaalmarin ku siiyo. wuxuuna u sheegay inuu yahay qof daaci ah oo dadku uusan ugu baahnayn wax abaalmarin ah, bedelkeeda asaga abaalmarin siiyo. ninkii aad ayuu u farxay. maalintaas wixii ka dambeeyey ninkii wuxuu noqday nin barta qur-aanka kariimka, wuxuuna si dhab ah u qaatay diinta islaamka. ninkaas gacantiisii waxaa ka soo islaamay waqti xaadirkan la joogo dad ka badan 300 oo qof. waa ninkii markii hore ahaa Kirishtan, haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo hanuuniyey diintaani islaamka markuu arkay ficnaanta wanaagga raxmadda diinta islaamka. dad kale ayuu ku soo dhiirigeliyey inay ku soo biiraan diinta islaamka. haddaba waxaynu ka baranaynaa halkaani diintaani inay tahay diin naxariis ah. qof kastana looga baahan yahay inuu diintiisii barashadeedii ku dadaalo. diintaani islaamka waa diin naxariis ah. qofkii si dhab ah u qabsada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku noolaynayaa nolol aan innaba aadi ahayn. adduunkaani raaxo iyo naxariis ayaad ku noolaanaysaa. aakhirana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku diyaariyey jannadiisii. waa fursad aad muhiim u ah. adigana waxaa lagaaga baahan yahay inaad ka faa'iidaysatid. maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaa yeelay qof muslim ah. dad fara badan ayaa lunsan maanta aysan ogeyn qur-aanka kariimka, axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam inay diinta islaamka tahay diin dhab ah. adigan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kugu soo hanuuniyey. ilaahay ayaa khayr kula doonay, diintiisii ayuu ku fahansiiyey. waxaa lagaaga baahan yahay inaad ka faa'iidaysatid fursaddaani aad heshay. walaalayaal muuqaalkaani like saara, haddii halkan ku cusub tihiinna subscribe noo saara. aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan rajaynayaa muuqaalkaani wax badan inaad ka faa'iideen. waa walaalkiini Maxamed Ali Ahmed oo idin leh sidaas iyo nabadgeliyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.